بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السلام يا دمان شعبك الصومالي ملك استيدوري كتشوغان خاصة شعبك جيس كأفريقيا الصومالية يوضبط اللدرس كأه بعد الصلاة عاو برنامج كدوا عاو سياسة جيس كأفريقيا عاو هبين جمعة سوق قليسو بري جمعة هاي ما أنت خميس هاي شريط طبقي بشي شناد oo ku beegan maalintii dhalinyarada SYL ahna maalintii Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Farmaajo ee doorashadoodii 2022 ku kala calaf qaadeen ummadda Soomaaliyeed qaladkii ugu weynaa gashay guud ahaan waxaan halka ka salaamayaa dhammaan shacabka Geeska Afrika dhammaan Soomaali meel kastoo joogto waxaan ku bilaabayaa barnaamijkeena caawa qodobka ugu muhiimsan ee caawa iyo siyaasadda Geeska Afrika waxaa weeye mooshin maanta gacanta laga geliyey shirguddoonka baarlamaanka Soomaaliya oo si adag weliba loola hadlay international community iyo xildhibaanada Soomaaliyeed oo ay hogaaminayaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan cabdi qaybdiid ku jiro xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ku jiro xildhibaan ku jiro sheekh shariif sheekh axmed xildhibaano waaweyn oo magac leh oo dhammaantoodna wada saxiixay in madaxweynaha Soomaaliya inuu ama sharcigii dalka dib ugu soo noqdo oo sharciyadii aanu ka gudbin waddanka ama uu iscasilo mooshinkaas oo micnihiisu noqon doono Xasan Sheekh Maxamuud inuu ama xilka ka dago ama uu isu soo dhiibo shacabka Soomaaliyeed oo uu talada dhexda soo dhigo waxaa caawa warar xog ogaal ah oo aan Muqdisho kala hadlay xildhibaano aan la hadlay ay iga warameen in mooshinkaasi socdo odaygii aadan madoobana gacanta laga geliyey 103 xildhibaanna ay ku saxiixan yihiin horta arrintaas hadday dhaqan gasho oo mooshinkaasi weliba mooshin adag oo Xasan Sheekh lagula xisaabtamayo noqdo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal mas-uuliyadoodii qaran si fiican bay u guteen hadday arrintaa Xasan ka hortagaan doorashadana ay miiska soo saaraan oo Xasan laga joojiyo xadgudubka uu ku hayo dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed dulman waxaa ii muuqda marxalad adag oo Soomaaliya gashay madaxweynaha Soomaaliya waxaa ka go'an in uu tiisa marsado waxaa lagu ixtiraamayana waxa weeye 12 bilood ee mandatekiisii amaanadii la saaray uga dhiman iyo in isagu uu fursad helo uu noloshiisa uu dib ugu xisaabtamo wixii fursadaha ee ummadda Soomaaliyeed ay bixiyeen oo dhan wuxuu u arkay inaan cid isaga ka soo horjeeda jirin dad teelteel ah oo meelo ay degan yihiin aan la garanaynin uuna ay yihiin mucaaradkiisa wuxuu suuqa geliyey madaxweynuhu inaanay dalku mucaarad lahayn oo dadku ay dowladnimadiisa ku qanacsan yihiin taasoo ah been cad madaxweynaha Soomaaliya saddexdii sane la soo dhaafay khasaarihii uu dalka geliyey kii ugu weynaa horta wuxuu ahaa in baarlamaankii federaalka Soomaaliya isla xisaabtankii uu soo la xisaabtami lahaa inuu meesha ka saaray saddexdaas sano baarlamaanka inuu laaluushay guddoonka baarlamaanka inuu bahdilay xildhibaanadii Soomaaliyeed ee karaamada iyo sida sharafta leh jaaniska u siiyay labaad inuu ciidamadii qaranka Soomaaliya baabiyey in uu federaal systemkii waddanka Soomaaliya oo dhan burburiyey oo uu la dagaalamay maamuladii federaalka ka tirsanaa oo ay ugu horeeyaan maamulka Puntland inuu ka dhigay baarlamaanka federaalkii Soomaaliya inuu ka dhigay mid uu la dagaalamo iyo mid uu ku qasbo
isaga inuu xisbigiisa hoos yimaado oo si qasaba uga saxiixay ilaa iyo kii ugu dambeeyey firdhiyo oo uu ka saxiixay hadda aanu xisbiga ka mid noqonin inuuna aqoonsi dowladeed siinayn. waxaa looga faa'iidaystay dhammaan guddoomiyaasha gobollada, waxaa looga faa'iidaystay baahida iyo deked la-aanta haysata magaalada laascaanood, dhuusamareeb iyo beledweyne iyo jowhar iyo lafta gareen oo baydhabo fadhiya. labadii dekedaha haystay international communitygana la dhiirgaraynaya waxba waa ka qaadi waaye. soo kuwa dhaqaalaha lagu gumaysanayaa iyo taitalka dowladnimada mid walba lafiis u baqay. calaa ayi xaal federaalkii wuu laalay sharcigii waddanka oo isaga xakameynaya lana xisaabtamaya hay-addii la xisaabtamaysa baarlamaanka wuxuu marsaday inaan baarlamaanku mar damba soo hor fadhiisan karan oo laysla xisaabtami karayo. sharcigii buu bedelay. waxaasoo dhan waxaa kasii daray markuu guddi doorasho oo ardaydiisii ah iyo diiwaangelin uu samaystay aan la garanaynin waxay tahay. waa shacabka soomaaliyeed waxa weeye waa la ogyahay waddanka dagaalaha ka socda gobollada maaragtay shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galmudug galgaduud dagaalo ba-an oo shabaab iyo dadkii amaysa ayaa ka socda. shabaabkuna xoog bay ku leeyihin, isaga jifadiisaana ugu badanba waa islaaba gobolkii u ka yimi haysta oo shabaab ah. waxay caddaynaysaa in shacabka aanay awoodi karaynin inay one man one vote galaan because waa la handadayaa, bambaana lagu qarxinaya hadday safaf u galaan doorasho markaa one man one vote dalka kama suurowdo. dal dagaal ka socdo oo laba group is haystaan macquul maahan doorasho laga qabto one man vote. marka halkaana wuxuu majara habaabinayaa oo majara habaabiyey dowladnimadii iyo dadnimadii dadka ayuu meel uga dhacay. waxa weye diiwaangelin isagu watuu ayuu keensaday. guddigu waa guddiga ardaydiisii wey oo xisbigiisa ka tirsanaa. waxuu kaluu sameeyey oo waxaasoo dhan ka daran musuq maasuq baahsan oo sharciyeysan. nasiib darrada ummadda soomaaliyeed haysata waxaa weeye qof soomaali ah oo xaqiisii maqan yahay ayaa wuxuu difaacayaa madaxweynaha, wuxuu ku difaacayaa qabiil. aniga madaxweynaha cidna igama xigto. hadday qabiil tahayna waa qabiilkayga, hadday tahay qarannimo hadday tahayna waa madaxweynihii magacayga lagu soo doortay. marka ma aha in qofka maaragtay xumaanta lagu taageero, waana sababaha uu isu mooday inuu saxsan yahay. madaxweynuhu telefishinka wuxuu la soo istaagay caruurtayda waa muwaadiniin, xaq bay u leeyihiin inaan shaqooyinka waddanka iyo xilalka iyo wax walba ay access u helaan. waayo caruurtaadii haddii ay iyagu keligooda helayaan xuquuqdii dowladnimada oo ay access u haystaan oo aabbahood la kulmi karaan mar walba, maxaad xil uga magacaabaysaa adaa booska ku fadhiya? caruurtii soomaaliyeed oo dhan baa wada qatan, caruurtayadii baa qatan oo waxay cunaanna haysanin, meelay u shaqo tagaanna haysan. markaad caruurtaadii shaqooyinkii siiso malaayiin doolar aad siiso, miyaad gafka gelin ummadda soomaaliyeed? wuxuu kaluu yidhi nin kastoo wasaarad aad ku qoray xaq buu leeyahay nabatasiisan. nabatasiisan waxaa weeye in aad eex u samayso ehelkaaga oo aad ku shaqaalaysiiso qabyaalad, oo ehelkaaga meesha kusoo buuxiso, oo aad eex u samayso dadka adiga qaraabada kuwa ummaddii aad mas-uulka u ahaydna aad ka xidhata albaabka. madaxweynuhu inuu telefishinka la soo fadhiisto wasiirku qaraabadiisa iyo eheladiisa iyo faamiligiisa uu shaqaalaysiisan karaa, cidna ha u joojina, shaqadiina qabsada. tiisii wuu xalaalaynayaa. markaa maxaa dhacday? wasiiro telefishinka soo fadhiistay uu yidhi ciddaa doonaa shaqaalaysiinayaa, license baan u haystaa. xasan sheekh baa ku dhawaaqay taa oo licenska siiyey. marka in musuq maasuqu levelkaa gaadho oo meeshii ugu sarraysay nin xil haya
ama dalkaa xilli yar ka soo qabtay xildhibaan iska dhaaf agaasimo waaxid nin qabtay oo aan nairobi guri ka dhisan ma jiro maxay tahay waxaas waay nairobi xaggaa lagu dhuumanaya halka laguma dhuuman kara maya in hantidii ummadda soomaaliyeed laxdo oo nairobi guriga lagaga dhisto xamarna bullet proof iyo gaad lagu dhex socdo ummadda dhexdeeda banaanadana gurya laga dhisto oo malaayiin doolar laxdo taasaa soomaalinimada iyo cadaaladda iyo wadajirka uu xasan sheekh wado xisbiga cadaaladdu sheegay 3 sano lasoo dhaafay cadaaladii laga waayay xasan miyaa maanta laga helaya mise wadajirka uu ku kala kaxeeyey wadajirku xaguu joogaa nimankan kan xisbiga safka hore iska soo fadhiistay ee safka dheer fadhiistay wasiirka arrimaha gudaha ka bilow ilaa aad goonaha kale ka gaadho oo wasiirka maaragtay muxuu ahaa magaciisa fartaag ilaa aad ka gaadho waa koore ilaa koore dhowr iyo 20 nin baa safan oo ninkan maxaa ula goynaysaan xasan sheekh maxamuud maxaa beenta ugu sheegaysaan maxaa runta ugu sheegi weydeen baashaan la cunaysaa ilaa derbiga soo jiidho nasiib darro weeye xasan sheekh maxamuud waxaa haysta nasiib darra haysata weliba waa isla quman yahay cajalada haddaa dhegeysataan oo caruurta dhalinyarada hortaagan yahay 15 May ninkaasi wallaahi qof miir qabas inuuna sidaa u hadlin weligii sida u hadlayo suu isla quman yahay siduu u haysto inuu guul gaadhay wuxuu u haystaa inuu soomaaliya meel fiican marayso waa ninka 30 sano waddanka aan ka bixin ee dhex taagnaa aan qaxooti aadin ee aan waddankaa sanad ka maqnaanin wey ninka saa u hadlay maxaa u malaynaysaa markaa kuwii qurbaha ku dhashay ku koray maxay samayn lahaay sidee xaggee wax ka bilaabi lahay hadduu ninkii waddanka dhex joogay saa u dhaqmayo nasiib darro weeye wixii ugu daraan habeen dhaweyn oo dhowr 3 habeen laga joogo ayuu wuxuu sameeyey madashii wada tashiga qaran ee soomaaliya oo dhan wada matalaysay ayuu kala diray waddankii wasiir ha noqdo ra-iisul wasaare ha noqdo xildhibaanka golaha aqalka baarlamaanka golaha hoose ha noqdo guddoonkii baarlamaanka oo saacadiyo matalayso ha noqdo maxkamadihii ha noqdo aqalkii sare meesha laga buuxa xafladiisa xisbigiisa lagu qoro koofiyadii xisbiga lagu war cadaalad xumo ka weyn miyaa jirta lacagtii ummadda in hotel inta lagu camiro waxaasoo qarasha la geliyo oo telefishinadii waddanka oo dhan la isugu yeedho oo youtuberska oo dhan la isugu yeedho oo kulligood 10,000 oo dollar lagu bixiyo dadkii soomaaliyeedna waxay ku cashayaan laayihiin war saxan digira dadaan haysan baa banaanka hoteelka jooga xasanna malaayiin dollar buu ku bixinaya xisbi been abuur ah iyo cadaalad aan jirin iyo wadajir aan jirin buu ku baaqaya xisbiga cadaalad iyo wadajir xaggee cadaalad taala cadaaladdu ma in 360 goor waddanka laga dhoofo 400,000 oo dollar la sii qaataa oo hal habeen lagu seexdo Switzerland $81,000 taasaa cadaalada wadajirku mataa puntland iyo jubbaland iyo kulli la kala diray waddankii oo dhan ba somaliland khaatumo laga dhex sameeyey wadajir baa taasi waa maxay xisbiga wadajirka iyo cadaaladda iyo wadajirku madaxweynu sheegay xasan sheekh maxamuud wuxuu iska casilay qarannimadii buu iska casilay wuxuu ku noqday xisbi iyo kooxaysi buu ku noqday tii ugu dambeysay wey taa uu sameeyey maalinta dhowey ku casilay guddigii maamul goboleedyadii oo wada tashigii qaran jiritaankii ummadnimo dalka waddankii oo dhan wuxuu ka dhigay hal xisbi ciddii xisbi kasoo horjeeda waaba la laynayaa bay taagan yihiin maalin dhawood baa nin baa wuxuu iigu dhaartay waan rumaystay hadalkiisa wuxuu yihi madaxweynuhu intuu turkiya ka yimi oo muraayad halkaa usoo xirtay ayuu safaaradda maraykanka diyaaradda kasoo tegay toos u galay xalane kadibna
wuxuu horta idinku maxaa noo qabatay 30 sano waxaa isiri maalinta waxbuu soo liqay ama jin baa ku jiray oo geesi ka dhigay oo Maraykanka inuu u bootay 30 sano waxaa noo qabatay ma jirto Turkiga intaa uu qabtay baa wax ah waa runtii 30 sano waddanku halkaa ma soo gaadheen hadday daacad ka ahaan lahaayeen Maraykanka iyo Ingiriisku way joojin lahaayeen dadka xasan oo kale ah inuuna talada dalka imanin ama xoog lagu kala bixi lahaa shabaab iyo ciidamadii maxkamadaha ayaa iyagu talin lahaayeen ama dadka Soomaaliyeed fiican talada loo diin lahaa xasan ma noqdeen madaxweyne ma noqdeen maanta reer galbeedka kelmadda waa abaalkooda sababtoo ah iyagaa waxa keenay iyagaa 3 sano imika daawanay sida zuuga naloo daawadaa madaxweynaha Soomaaliya isagoo libaaxa booskiisa ku jira ama waraabo boos ku jira oo caruurtiisa iyo dadkiisa cunaya oo wadankiisa afka saadhiig uga dhacayo oo marba diyaarad saaran oo hantidii ummadda xadaya oo guriyo ka dhisanaya Tanzania iyo Turkiga iyo Nairobi ka dhisanaya guriyo oo lacagtii ummadda intuu rag u dhiibo Nairobi lagu maartay magaalada ka dhisanayo oo hantidii ummadda kuraastii uu magacaabay lagu xadayo shilin kastana oo waddanka laga saarana uu sheer ku leeyahay oo shirkado laga furtay Nairobi iyo Muqdisho iyo Tanzania iyo Dar es Salaam iyo bangiyada Djibouti ay buuxaan lacagtii ummadda laga buuxiyay ummaddiina waxay cunto laadahay oo Makka al-Mukarrama laamiga weyn ee Makka al-Mukarrama iyagoo xalaaf noqdo shaarar cadcad iyo macawis xiran oo dacs xiran bay fadhiyaan rag odayaalo dhowr iyo 60 jir ah wallahi markaa dhex marto nin walba kaad yaro warqad yaro numberkiisu ku qorayo hoosta ku haysta ma ku yeeri karo gooni kula qoray please igu tuur ilaah baa kugu dhaari dhowr iyo 50 kun oo nin oo laamiyada Muqdisho ciidamadii qaranka ahaa jiray mutacalimiintii ahaa jiray macallimiintii qaranka ahaa jiray oo ninka ugu yar dhowr iyo 60 jir yahay ninka ugu weyn 9 jir yahay oo nin walba warqad yar ugu qoran yahay numberkiisa EVC-ga saadka halka ay u tuur qadadii maahay ama kaalay maqaayada u tuuro qadaysi qada la bariya quraaci casho khadka ma kuma jiraan xasan sheekh musuq heer u gaaray in ninkii uu agaasimo waaxid u magacaabo inuu real estate xaafadan intuu xirto وحافظنا كسبي سنة real estate building تونسو أجاسمها وحالي يقول مكة المكرمة دبديدة أيها apartment يوسف ولا دسي ولا كرينا اللي حلح بقولوا دولار سديد بقولوا دولار يعني سكنا وحالي من airport كأجاسمها كأجري بدارها دستي و village African village يبقاري يجو لعق oo apartments isku saaran oo Makka al-Mukarrama garaasheeda ka samaysan oo barricade laamiga dhanbaaba u xidhan barxad leh baabuurta la dhiganayo apartmentkii laba qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi qol iyo fadhi agaasime airportka haysta ayaa wuxuu dhistay hantidaas waliba teeramkan baa waa teeramkii wanaagsan Nairobi waxaa lagu leeyahay sakadadan xaafado dhan baa 3 sano imika waxsan joogay xaafado dhan baa laga dhistay hoteelo maalalka waxa lacag waddanka laga guray ummadina waa baahanta ilaahay muwaana caadilahay inuu kaliya wada fadhiisiyo beerku wada fadhiisto lacagtaa la haday in isbitaal lagu tago wallahi billahi dadka ishooda wallahi inaan caafimaad lago caruurtuna waa idinka la-aanaysa gabagabadii xasan sheekh maxamuud waddankii maalintii uu golihii wada tashiga qaran uu ka dhigay xisbigii cadaaladda iyo wada jirka waa xisbigii cadaalad darrada iyo kala kaxaynta dalka maalintaas waddanku burburay caawa mooshinka yaalla wuxuu badbaadinayaa xildhibaanada baarlamaanka qaranka Soomaaliyeedna wuxuu ku badbaadayaa mooshinkaasu xasan lagu fuliyo xilka laga qaado
sanadka hadhay aan la sugin xasan dowladnimo kumeel gaadh ah oo waddanka doorasho ka qabata 2 sano soo socda oo madaxweyne ama 4 sano soo socda madaxweyne saxa baarlamaanku soo doortaan oo madaxweynaha mandate loo dhiibo oo intaasaa haysataa dalkaas inuu nabad noqdo xasilo haddaad awoodi kari weyda nagu soo celisa xilkaya waxaan kusoo gabagabeynayaa mooshinka ilaahay ummadda soomaaliyeed wax khayr qaba ha uga dhigo xasanna ilaahay ha dhaafiyo hadduu doorasho galaya isagii xisbigiisa marka waddanku doorasho ay 1 man 1 vote la gaadhaha sugeen laakiin hadda 1 man 1 vote ma jirto mana dhici kartaba annagaan aqbalayna xasan 1 man 1 vote inuu dad diiwaan gashado oo yidhaha dadkaas ha ii coday markaa yeelin hadduu taa sameeyana meel kasta madaxweyneha looga dhawaaqaya waddanka dhan wada madaxweyneu noqonaya qolo walba madaxweyneheeda ku dhawaaqaysa waxaan ku gabagabeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto ilaahay ha u noqoto danteeda ha raacato dowladnimada iyo jiritaankooda iyo ummadnimadooda ha ilaashadeen waxaynu u baahannahay inaynu fahamno isbeddel inaynu sameyno isbeddel ka weynna ma jiro in ummaddu siyaasiga tuuga ah ee xadaya inay iska qabtaan waayo siyaasiga tuuga wuxuu xadayaa jiritaankoodii iyo ummadnimadoodii tuuga meel ka xada boqol kun oo doolar ama 1 milyan ama guri soo galo wax ka xada dahab ka xada alaabu xaday iyo lacag laakiin ninka isagoo madaxa ummadda dhaca oo xada siyaasadooda oo qarannimadooda sidan u gala oo dalkooda sidaa u khiyaameeyo intaas oo qof ku qasba inay hal xisbi noqdaan isagana loo shaqeeyo wuxuu xaday masiirkii ummadda iyo mustaqbalkoodii oo dhan buu xaday in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay ummad ma bedelo ilaa ay iyagu isbedelaan waxaan kusoo gabagabeynayaa hanuuniye ila dhegeysta
soomaaliya geyigu gurmad buu rabaa. kaasi waa fanaankii weynaa ee hanuuniye. waxaan idinkaga tegayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastaa joogtaan, wadanku wuxuu u baahan yahay gurmad. geyigu gurmad buu rabaa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.